haddaba qodobka ugu horeeya barnaamijka waxaynu kaga hadlaynaa xamaas ayaa war soo saartay saakay waxay leedahay wafdigeennii ku sugnaa magaalada qaahira ayaa dib ugu laabtay magaalada dooxa ee dalka qatar. barnaamijkayga xalay waxaanu ku soo qaadanay faahfaahin ku saabsan in xamaas ay geysay halkaa qorshe cusub oo xoogaa ka duwan kii hore. haddaba lama jiro faahfaahin badan, laakiin waxay sheegeen xamaas inaanay marnaba aysan aqbali doonin, dhexdhexaadayaashuna ay u sheegeen in lagala sheekaysto hubka dhigis wax la yidhaahdo, oo macnaha hubkooda aanay marnaba dhigi doonin inta ixtilaal uu jiro ama gumaysi ay israa'iil ku hayso falastiin. hubkeena ma dhigayna yidhaahdeen, danaana looga adkaan karaa oo nalalayn karaa, hubkeena la qaadan karaa maan, laakiin annagoo soo taagan oo soo jeedna hubkeena inta dhiibno yahuud gacanta ma u gelinayna yidhaahdeen. marka qorshahaas marka weli wax faahfaahin oo dhanka dhexdhexaadayaasha kasoo baxay ma jiraan, laakiin dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin rajo badan halkaa lagama qabo, sababtoo israa'iil mowqifka ay taagan tahay waxay rabtaa maxaabiista inay qaadato, dagaalkana ay wado. nimanka karuna maxaabiista hadday iska dhiibaan wax u haray ma jiraan aan leeyahay. marka kollay arrinkaa halkaasuu marayaa, natiijo wanaagsan oo markaa rasmi ah oo kasoo baxdayna ma jiraan leeyahay. wafdigii xamaasna dib ayay xafiiskoodii ama xaruntoodii dooxa ee dalka qatar ugu laabteen. qodobka halkaas ayaynu kaga gudbaynaa. waxaa noo soo socdaa sheekooyin la yaab leh oo ku saabsan maraykanka oo duqeeyey markab israa'iil ay leedahay. sheeko la yaab leh ayaan idiin hayaa, laakiin markan waxaynu galaynaa ninka la yidhaha Donald Trump ayaa wuxuu sheegay hadal, wuxuuna ku qoray bartiisa maaragtay internetka ayuu ku leeyahay ayuu ku qoray. marka ninkan muxuu leeyahay laba meel oo muhiim ah oo maraakiibtu ay maraan oo markaa istaraatiiji ah ayaynu maraakiibteena ganacsiga, kuwa militariga iyo wax walba maraykanku leeyahay oo calanka maraykanku ka taagan yahay firiya ku maraayaan, wax lacaga oo aan bixinayna marowle baad caadiya maarad ayuu ninkan marka bannaanka la yimid. sheekadu marka dhowr weji ayay leedahay. midka Panama la leeyahay markii horeba maraykanka ayaa maamuli jiro iska lahaa 1999kii ayaa lagu wareejiyay dowladda Panama. hadda markuu Trump soo laabtay dib u soo ceshanaynaa uu lahaa. kaas marka waa la fahmi karaayo meel ayaga markii hore ay dhiseen oo ay lahaayeen oo markii dambe dowlad kale ku wareejiyeen waay. waana meesha 40% maraakiibta ganacsiga ee maraykanku ay maraan oo markaa la leeyahay wuxuu isku xiraa koonfurta iyo waqooyiga America. waa tunnel yar oo bad saas maartay maraakiibtu ay u maraan waay. kaas marka noocaas waaye ayagaaba markii hore wax ku lahaa 1999kii ama 1999kii ayaa maartay dowladda Panama ay ku wareejiyeen. tan markuu soo laabtay Trump marka hawsha saas u galay, laakiin waxa la yaabay waxay ahayd kanaalka Suez ee masaaridu leedahay waa isha ugu badan ee dhaqaalaha Masar ay ka hesho, maadaama sanooyinkan xuutiga iyo dagaalkiisa uu saameeyay oo markaa lacag fara badan aanay ka soo galin. kanaalkaas marka wuxuu isku xiraa badda Atlantiga oo Yurub markaa aadaysa iyo badda cas markaa soo aadaysa iyo Afrika iyo dhulkan. halkan dariiqaana dhow oo macnaha meel yar oo kanaal samaysa laga sameeyay oo markaa maraakiibtu ay maraan labada bad isku xira. kanaalkaas marka lacag fara badan laga qaadaa maraakiibta halkaa marta, hadday yihiin kuwa ganacsiga, kuwa militariga, wax walba meesha maraya dowladda Masar lacag ka qaadaa. Trump marka wuxuu taagan yahay hal shilin ma bixinayno, kanaalkaas waa iska maraynaa, maraakiibteena masaarida ma la hadli karta xataa. Panamana sidoo kale waa iska maraynaa, wax canshuuroo nala weydii kara male. marka doodaasa marka maanta waxay ka taagan tahay social media. midda Panama meel naga dhig, midda masaaridu marka carabtii oo dhan way kacsan tahay. qaara marka dooda Trump sax waayo leh waxaa la yaabay qaara marka aqiil u samaynayo waana macquul ay la tahay laftirkeedu. waxay leeyihiin maraykanku malaayiin dollar ayuu sanad kasta masaarida siiyaa, waxna kagama bedesho. maraakiibtii halkaa martana canshuuru ka siin jiray. marka ninka Trump waa nin ganacsada oo caqli badan, wuxuu isku miisaamay lacagta maraykanku siiyo Masar iyo lacagta uga baxda maridda canshuurta looga qaado. xuleena marka lacagaha siinay way marka canshuur nooga qaadaya.
marka waxay leeyihiin taa macnaheedu baad camal ma aha ee wixii uu maaragtay lacagtii halkaa uga baxaysay ayuu markaa isku dheelitir sameeyey tii canshuurtuu booday tii kaleu siinayana wuu siinayaa marka waxay leeyihin waa isla meeshii laakiin awal masar faa'iiday qabto lacagtaanna way qaadanaysay caadiga loo siiyo middan kalena way qaadanaysay dooda marka qolaha saas ku doodaysa waxyaabaha kale ee yaab kale waxaa ka mid ah dood kalaa jirta iyadana waa adduunkan mogtahay wax walba inaan ogaano waayo dooda kale ee carabtu ay ku doodayso waxay leeyihiin lacagtaasu masar wuxuu u siiyaa maraykanka oo macnaha sanad kasta uu u dhiibo oo maraykanka uu u siiyo masar waa inay ilaaliso israa'iil oo israa'iil aysan ku duulin waxaa loo haystaa dowladda keliya ee caraba ee israa'iil daris la ah ee haddii ay diriraan israa'iil khatar ay gelayso marka arrinkaa marka waa laaluush ay leeyihin masar waxaa loo siinaya jacayl ma ah hadduu wax bixinaa dowlado kaleu siin lahaa u fiirsada dowlado kale oo adduunka oo masar ka mudan oo uu kaga saaxiibsan yahay ayuu malaayiinta dollar siin lahaa laakiin masar wuxuu u siinaya maxay tahay heshiiskii Camp David markii ay saxiixday oo Israa'iil ay aqoonsatay iyadoo carabti dhan ay diidan tahay oo masar ay noqotay dowladii ugu horeysay ee aqoonsata Israa'iil oo safiir u magacaabata oo madaxweynihii masar ee xilligaa uu tagay oo heshiiska la saxiixay ayaa maraykanku wuxuu masaarida marka siiyay abaalmarin iyada iyo Israa'iilba sanad walba malaayiin dollar la siiyaa maraykankaasi si markaa laaluush camal masaarida xukunkeeda qof kastoo yimaada inuusan Israa'iil ka shaqayn weerar in lagu qaado lala diriro marka waxay leeyahay taas waa laaluush asaga dantiisa ku fiirsaday oo Israa'iil loogu waardiyeeyay laakiin cashuurtan baad waaye xoog waaye waana sugaynaa dowlado kale inuu baadi doono ninkan haddii tan u marto taas u marto oo golaha ammaanka uusan wax ka qaban oo adduunyadu aysan hor istaagin waxay leeyihiin dowlado badan oo baadi doona dhulkoodana waa qaadan doona ninkaas ciduu baryahay male marka sheekadu markuu waa fahamnaa oo malayna marka nidaamkaas markaas ninkii Trump ahaa qorshahaasu marka la yimid sheeko waalan waa marka waa sheeko aad cajiib waaye qodobka isaguna halkaas aan kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijkeena aynu ku soo qaadanayno wuxuu yahay dekadii weynayd ee qaraxa uu ka dhacay wadanka Iran oo shalay ilaa xalay aan ka sheekeynay tirada dadka dhintay hadda dhow ayay soo saareen Iiraaniyiintu waxay yiraahdeen 18 qof ayay gaartay waxaana laga baqayaa in dad kale ay dhintaan maadaama 700 in ka badan ay ku dhaawacmeen oo qaar dhaawacoodu halis yahay oo khatar ay ku jiraan inay dhintaan laga yaabo marka waxay yiraahdeen laakiin hadda dadka dhintay waa 18 waxyaabaha la yaab kale ee saakay warbaahintu ay ka qorayso waxa kamid ah waxa la leeyahay meesha qaraxu ka dhacay wali lama demin dabki dabaylo badan oo meesha ka jira awadeed qolayaha gurmadka ah way ku adag tahay wali way la tacaalayaan inay dabki meesha ka qarxay ay damiyaan midda kale in iskuulada maanta ahada aan la soo aadin midda labaad wuxuu yiri dadka waa inay guryahooda joogaan aysan dibadda u soo bixin taasa marka shaki badan keentay oo dadku ay ka shakiyeen sababta looga shakiyay marka waxa leeyahay waxa laga baqayaa containero chemicalisa oo ku jiray oo meesha yaalay in ay marka qaraxa looga baqayo inuu saameeyay ama inuu hadda dabka ku sii socdaba inuu saameyn karo taasoo la sheegi doono marka hawada xataa inay marka ay sun ka dhigi doonto taasa marka laga baqayaa marka saaki waxa la yiri iskuul la aadam male shaqo la aadam male nin walba gurigiisa ha ku jiro qoliyaha gurmadka iyo dawladda iyo ciidankeeda waxa meesha ka shaqaynaya marka waa arki doonaa xaaladda wixii ka soo kordhana waan idin la wadaagi doonaa waa tahay qadar xayisiisa kadib sheeko xiiso aan idin hayaa mareykanka waxa la yiri wuxuu duqeeyay markab Israa'iil ay leedahay iyo xuutiga oo saaki gantaalo mar kale ku soo salaamay Israa'iil oo ka hadashay ku soo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka qaybta waxaynu ku faahfaahinaynaa badda cas iyo xaaladaheeda waxa ka soo kordhay Trump iyo xuutiga halka ay kala marayaan haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Mareykanku xalay mar kale haddana duqeymo uu ka fuliyay Yemen
xuutiguna ay ku jawaabeen saakay oo axada inay markaa iyaguna ay gantaalo ku weerareen israa'iil. haddaba xuutigu gantaalahan saakay faahfaahin kama bixinin, laakiin ciidanka israa'iil ayaa war soo saaray. waxay leeyihiin saakay oo axada gantaal laga soo riday yaman ayaa lagu soo weeraray gobolada xiga dhinaca badda la yidhaahdo albaxrul mayit ama badda dhimatay. badda dhimatay waa baddii carabta ay ka qabsadeen waaye, albaxrul mayit aa la yidhahdaa. baddaas eeriyadeeda ayaa dadkii godadka ku carareen oo maaragtay sifaaraatul indaarkii ama siirigii digniinta uu halkaa ka qaylinayay. marka waxay leeyihiin iyagu gantaalka waxba nama gaarsiinin, waa ka hortagnay. laakiin yaxyaa sariic warkiisu waa dhiman yahay, isagu waa soo socdaa, isaguna wuu ka hadli doonaa. marka hawshaasu halkaas markay marayso xuutiga waray soo saareen, marka ay leeyihiin maraykanku wuxuu duqeeyey markab israa'iil ay leedahay oo layidhaahdo galaxy leader. galaxy leaderka waa markabkii hore ee qabsadeen xuutiyiinta. waa dhexdaas ayaan barnaamijkayga ku sheegay shaqaalihii ay qabsadeen oo dhan inay sii daayeen, oo macnaha markii hore macal shaqaalihiisay qabsadeen, shaqaalihii marka way sii daayeen, laakiin markabkay xuutiyiintu haysteen. marka waxay leeyihiin 3 weerar oo dhinaca cirka ayaa ku dhacday markabkii israa'iil ay lahayd. maraykankiyaa dukum daakum ka dhigay xalay. marka anagu waxba nagama gelinay leeyihin. marka dadka khubarada waxay leeyihin muxuu u weerarayaa maraykanka markabka wuu u jeedaa inuu meesha yaallo. waxaa laga yaabaa leeyahay xogo sirdoon inay heleen oo ku saabsan mas-uuliyiin xuutiga ah inay markabka iska fuuleen iyagoo aaminsanaa markab israa'iil leedahay maraykanku inaanu duqaynayn. marka taana shaki badanaa ka jiraa leeyahay in xuutiyiin mas-uuliyiina ay meesha saarnaayeen. marka laakiin xuutigu waxay leeyihin wax meesha laga saarnaa bale markabkoodii nagta ka saareen. kii israa'iil lahaydoo dukum daakum ka dhigay yidhahdeen xalay annaga haddana looma qabsan kara yidhahdeen. hadhow markii heshiis dhaco oo markabka keena la yidhaahdo markabkan maraykanaa ku da-ayay leeyihin. saasuu la socda. marka qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena subaxnimo ee saakay oo axada. intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. fadlan ha iloobeynina barnaamijka inaad like garaysaan oo aad share garaysaan. haddii aad nagala socoto youtube-keena oo aad cusub tahay fadlan subscribe ka samayso. haddii aad nagala socoto facebookeenana follow garay. inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan sidaas iyo nabadgelyo.